بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين runtii maalmahan ilaahay wuxuu na siiyey farxada iyo guulo isdaba joog ah sababtu waxa weeye maalin aan ciidan sii dhaweynayno tababar u socda iyo maalin aan kuwa soo dhamaystay aan soo dhaweynayno taasuna waxay muujinaysaa dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha uu marayo iyo xawliga uu ku socdo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo nabad ah oo xasilooni heshan nabadeed oo barwaaqo ah ciidankeeda oo dhisan oo dhammaan difaaca xuduudaha ku filaada in ilaahay la gaarsiiyo Soomaalina ilaahay gaarsiiyo ciidankan maantay baxaya waanu sagoontayno runtii waa ciidan aanu ku faraxsanahay waa ciidan aan jecel lahay waa ciidan tababar 3 bilood ku qaatay kulliyadda Turkistan kadibna waddanka Turkiga tababar ku soo qaadanaya waxa isugu jiraan saraakiil xigeen iyo askar dabley waa ciidan aan rajaynayno waxay soo barteen inay dalka u soo baranayaan dalkana gelinayaan insha Allah waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay nabad ha idin ku geeyo tababarka nabad ha idin kugu soo dhameeyo adikoo nabada dalkiina ku soo laabta eheladiinni iyo caruurtiinni adikoo nabada ilaahay ha idin kugu soo celiyo annagoo dhammaan bulsho ahaan iyo ummad ahaan iyo ciidan ahaan nabadan Allah isku kaayo soo celiyo ilaahayna waddanka iyaga noo soo xasiliyo mar walba waa u ducaynaynaa waddanka qof walba oo meesha joogta ugu soo ducee dadka Soomaaliyeedna u ducee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تليها دولك تليها تركسوم دمان سراكيشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا حنسوقتينينا ciidamadii gorgor oo tababar ku qaatay dalka gudihiisa u socdo Turkiga si loo soo tababaro waxaan u mahadcelinayaa shacabka Turkiga dawladdiisa iyo mas'uuliyiintooda iyo saraakiishooda siday mar kastaba ay ula garab taagan yihiin dawladdeena Soomaaliyeed iyo ciidamadeena Soomaaliyeed inay caawiyaan khaas ahaan ciidamadeena Soomaaliyeed inay dhisaan oo noo dhiseen gorgor oo hadda la ogaaday in faa'iidada ay dalku u leedahay gorgor iyo guulaha ay soo hoysay marka waxaan leenahay dawladda Turkiga iyo shacabkeeda waa mahadsantihiin waxaan kale u sheegayaa ciidamada maanta baxayo waxay heleen fursad malaayiin Soomaaliyeed ay helin waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay si fiican u soo tababartaan tababarkoodana la soo noqdaan dalkana ku xoreeyaan cadawga ilaaliyaan midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ilaaliyaan badda cirka iyo dhulka Soomaaliyeed iyo gobonnimada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan yaan ka rajaynaynaa waxaana ka rajaynaynaa in insha Allah ay tababaraan ciidamo kale oo fursad u helin inay aadaan wadamo kale shalay waxaan qaabilnay ciidamo oo ka imaaday maantana ciidamaan sagootinayna dadaalkaas wuu soconaya xiriirka labada dal sidaas u soconaya insha Allah intaan ka gaarayno ciidan qaran oo ku filan dalkan inuu ilaaliyo intaan ka helayno fursadan ka faa'iideystaan idin leeyahay safar salaama idin leeyahay ilaahayna nabad ha idin ku keeno midda kale aan idin oranaya waxa way niidin wanaajista shaqadaad ku jirtaan waa shaqo qaran waa shaqo markaad aad u niyeysato oo gaarayso cibaado oo ilaahay ajar ka siinayo inama al-a'maalu bin-niyaat ba xadiidka u ahaa niyadaada haddaad hagaajisato aad ugu talagasho shaqada aad qabanayso inaad qarankaada iyo ummadaada Soomaaliyeed iyo soo kabashadeeda iyo jiritaankeeda niyadaada aad ku wanaajisato oo habeenkii ku seexato maalintii ku soo jeedo oo ku shaqayso oo ilaahayna aaminto ilaahay wuxuu ku qorayaa shaqada aad ku jirtaba inay cibaado tahay marka shaqo fiican aad wadaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa idin garab taagan yahay anagana xukuumad ahaan waa idin garab taaganahay waxaan idin leeyahay shaqo wacan guuleysta tusaale waxaad u tihiin
ciidamada qaranka ku dadaala insha allahu in tababar soo qaataan dalkiin ku soo laabataan difaacataan insha allah waana mahadsantihiin taliyaashana waan u mahadinaya